sanad guuradii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta laga joogo 25 sano ayay Somaliland u dabaaldegaysaa. Ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ee militariga ayaa ciidan aad loo qalabeeyay kuwaasoo muddooyinkii u dambeeyay juhdi aad badan lagu bixinayay. Muddo laga joogo 25 sano ayaa maanta laga joogaa 2 February oo maanta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa kaatin mid aad loo qalabeeyay oo si fiican amniga qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland u sugi kara. Jamhuuriyadda Somaliland ayaa juhdi iyo dadaal aad u badan ku bixisay dhisidda ciidan tayo leh oo xoog leh kuwaasoo haatan maraya waqtiga ugu fiicnaayeen iyagoo hub iyo gaadiid haysta. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa wareysi u siinayay telefishin Carbeedna sheegay in hubka iyo saanada militariga suuqa xorta ka soo iibsadeen isagoo sheegay in aanay cidna daba fadhiisan. Wasiirka ayaa wareysigiisaas u bixiyay muddo dhaweyd ku iftiimiyay in hubka ay ka soo iibsadeen suuqyada caalamka cidina aanay soo taagin. 90% ay haystaan hubkii ay kala hadheen dowladii kale taliyihii Maxamed Siyaad Barre.